السلام عليكم walaal ma ogtahay inaad tahay shakhsi leh karti iyo awood oo qaban kara shaqo walba inaad hesho wax walba aad jeceshahay waxay u baahan tahay kaliya dadaal oo kaliya weligaa ma isweydiisay waa maxay ujeedka aan nolosha ka leeyahay waa maxay waxa aan rabay inaan xaqiijiyo ma leeyahay qorshe iyo hadaf aan rabay inaan gaaro waliba si dhab ah ma isu weydiisay haddii ay jawaabtaadu tahay maya ha sugin waqti kale ee hadda isweydii oo ka fikir waxaa la joogaa waqtigii isbedelka allana tala saaro yeesan waxba ka bedelin goortii qofku yiraahdo waxba ma qabsan kartid caqabaduhu kuma joojin karaan dhibaatadu kuma joojin karto dad wax ka sheegay kuma joojin karaan adiga kaliya ayaa naftaada joojin kara oo dib u dhigi kara waqtiga ku bixi waxa aad jeceshahay waxa aad hibada u leedahay waad ka guul gaaraysaa insha Allah Jack Ma waa ganacsado u dhashay dalka Jaana noloshana ka gaaro horumar weyn wuxuu yiri mar uu ka hadlay wadada qodxaha badan ee uu guushiisa u soo maray waxa soo maray guul darooyin fara badan waxaan ku guul dareystay iskuulkeygii asaasiga ahaa laba mar sidoo kaleeto mar ayaan ku guul dareystay dugsiga dhexe tira saddex mar ah si la mid ah 3 sano ayaan isku dayay sameeyay waan ku guul dareystay jaamacadda sidii hore oo kale inta kadib waxaan codsaday shaqooyin ilaa 30 mar waxaan helay jawaabo diidma ah waxaan isku dayay inaan noqdo police waxay igu dhaheen maya kuma fiicnid policenimo waxaan aaday xitaa KFC da markii ay jaani soo gaareen 24 qofood ayaan shaqada ku codsanay 23 qofood waa la aqbalay waxaana noqday halka qof ee diidmada helay sidoo kale waxaan codsaday jaamacadda Harvard University tira 10 mar ah waxayna isiyeen jawaabo diidma ah uma malaynaya adduunka inay jiraan dad badan oo helay jawaabo diidma ah in ka badan 30 mar marnaba ka quusan nolosha sida waxa leh Jack Ma oo ah aasaaska shirkadda weyn ee Alibaba Group oo ku taala wadamo badan oo caalamka ah iyadoo daqiiqad walba oo nolosha kamid ah ay tusaysay sabab uu uga quusan karo hadafkiisa haddana ma uusan quusan mana joojin dadaalkiisa haddii aad rabtay inaad ka dhabayso hadafka aad nolosha ka leedahay marnaba aad ha uga fikirin wixii tagay waxay ku keenaysaa murugo aad ha uga fikirin mustaqbalka waxay ku keenaysaa walwal iyo cabsi ugu noolo maantadan adigoo dhoola cadeynaya diiradana saaraya si walba xitaa hal talaabo aad horay ugu qaadi lahayd ogow waqtiga waa uu socdaa sanad walibana waxa guuleysta kuwii intii aanu bilaabmin qorshihiisa sii diyaarsaday halka inta kalena uu yahay tirooyin bilaabmay oo haddana dhamaaday haddii aad maanta ku guul dareysatay isku day aad sameysay xaquusan ee mid kale ka duwan isku day mar la qeexay doqonnimada ayaa lagu tilmaamay inay tahay ku celcelinta hal ficil adigoo raadinay natiijo cusub waan ogahay inayna wada dhibayso inaan qorshe dejisano haddana ka guul gaarno si walba ay nagu qaadataba balse isku day inaad qorsheysato waqtigan 24 saac soo aadan wixii aad qaban lahayd kadib isbuuc bil ama sanad waan hubaa inaad guuleysan doontiin insha Allah waxa jirta xigmad English oo oranaysa if you fail to plan you are planning to fail haddii aad ku guul dareysatid inaad qorshe sameysatid waxaad qorsheynaysaa inaad guul dareysatid waa walaalkiin cali dhooleyre oo idin la jecel khayrka